dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Cabduuli Maxamed Cali Gaas ayaa doonaysay inay Puntland ka hirgeliso nidaamka axsaabta badan oo qayb ka ahayd ballanqaadkii madaxdu sameeyeen xilligii doorashadii 2014. madaxweynaha Puntland Cabduuli Maxamed Cali Gaas ayaa sanadkan horaantiisii ku dhawaaqay guddi kumeel gaar ah oo ka shaqeynaya doorashooyinka iyadoo shaqadooda si rasmi ah loo daafuray bishii May ee isla sanadkan. guddiga oo helay kalsoonida baarlamaanka Puntland ayaa waday inay dooda ka yeeshaan xeerar ay ansixiyeen guddi iyaga ka horeeyay. kulan maanta ka dhacay magaalada Garowe ayaa madaxweyne Gaas ku daafuray hanaanka axsaabta badan ee guddigaasi loo xilsaaray. bulshada rayidka oo afkooda ku hadlaya dalada ururada aan dowliga ahayn ee Puntland ayaa madaxweynaha ka hor sheegay inay doonayaan nidaamka dimuqraadiyadda halka xafiiska u dooda xuquuqul aadanaha uu tilmaamay inay marag ka yihiin ballanqaadkii la sameeyay. annagu haddaan nahay bulshada rayidku waxa ay rabaan shacab weynuhu waxay rabaan in la helo dawlad dimuqraadi ah shacabku ay qiimo ku leeyihiin codkoodana qof ku dooran karaan shacabku ay tala ku leeyihiin shacabku markay wax doortaan waxay ku qanacsan yihiin inay waxay doorteen iyagu doorteen oo uu yahay maaragtay wax matala qof matala. barnaamijka doorashooyinka ee Puntland waa ballanqaad weyn dhammaanteen markhaati aynu ka wada nahay aan xasuusinahayo in ballanqaadka noocaas oo kala ah oo laga sameeyo halkan madaxweynihii dalka oo jooga iyo gudoomiyihii baarlamaanka iyo shacabka oo dhan inay tahay ballanqaad kulligeen aan wada xasuusan doono. xubin ka mid ah guddiga doorashooyinka kumeel gaarka ayaa sheegay inay wadaan howlihii loo igmaday isla markaana ay bilaabi doonaan hanaanka geedi socodka waxayna madasha ku soo bandhigeen barnaamij ka hadlayay waxqabadkoodii iyo weli waxyaabaha ay qaban doonaan mustaqbalka dhow. waxaan ku soo bandhigaynaa qorshe hawleedkii guddiga doorashooyinka Puntland oo aan muddo ka soo shaqaynaynay. qorshahaasi wuxuu isugu jiraa 3 qorshe sida aad arki doontaan qorshe la soo qabtay qorshe socon doona maalinta guddiga la magacaabay ilaa iyo maalinta doorashooyinka la muddeeyay la qaban doono iyo qorshayaal la balangareeyay oo waqti leh. waxaan marka hore inii sheegay waxa dadku waxyaabo badan baa hadda guddiyo badan baa jira oo guddiga waxa la maqlaa doorashooyinka dadban guddiga doorashooyinka hebel marka anagu waan iscadaynaynaa waxaan la yiraahdaa guddiga doorashooyinka Puntland maaha kuwa federaalka ee kuwaas. afhayeenka baarlamaanka Puntland Axmed Cali Xaashi ayaa xusay in ka baarlamaan ahaan ka soo baxeen waajibaadkii saarnaa maadaama ay kalsoonida siiyeen guddigan oo ka kooban 9 xubnood. madaxweynaha Puntland Cabduuli Maxamed Cali Gaas oo khudbad dheer jeediyay ayaa ka hadlay nidaamka axsaabta badan waxa uu tilmaamay inay jiri doonto dib badan oo lala kulmi doono balse waxa uu ku dardaarmay inaan loo joojin oo hore loo sii socdo. dimuqraasiyadda laftigeedu perfect maaha wax kastoo bini aadamku uu ka rabay dowladnimada dimuqraasiyadda kama helo. dimuqraasiyadda waxaa la yiraahdaa xukunka majority-ga iyo ilaalinta xuquuqda minoritiska. dimuqraasiyadda marka lafteeda u jeedaa qof walbaaba waxa uu reey ka helimiye dhexdeedii. waxaan rabaa marka dib badan baa lala kulmi doonaa dhulkeennu hadda dimuqraasiyadda aan ka hadlaynay iyo waxaan ka hadlaynaa hadda bisha 2017 inay dhacdo doorashadii municipal electionski. Puntland waa fiday degmooyin cusub bay yeelatay caqabado badan baa imaan doona oo aanan ku talagelinin laakiin waa inaanan ka baqin waa inaan ku dhiirannaa ya waa inaanu wixii aanu socodsiin karno socodsiinaa ya annagoo marwalba maslaxadda caamka ka eegayna kuna talagelayna dadkayaga in aanu wanaag u horseedno meesha aanu joogno meel ka fiicanna aan gaarsiino haddii Ilaahay yiraahdo. xukuumaddii tan ka horeysay ee hogaaminaya madaxweyne Faroole ayaa isku dayday inay Puntland ka hirgeliso nidaamkan balse waxaa soo wajahay xaalad adag oo keentay in laga laabto go'aankaasi waxaana madaxweyne Gaas oo xilligaas tartamay uu ballan qaaday in nidaamka dimuqraadiyadda uu gaarsiin doono Puntland isla markaana lagu salayn doono doorashada dhici doonta 2019.
cabdirasaaq maxamed xayir Jubaland TV garow.